السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اللي متلا وانا حريص انت حنرتين العافية ويحمل راجل المراج الخير العسية وعربينا هالقضب والحظ وصعد ما تعرفوا بأنت الأبدي بشيء تتبعتكم نربكم عاد اللي يحكوا بيلا لا يهتمون بشيء وتكون أفرق أفرتن ستيت قضبك إيران لبنان هرمرة لغو قاري وهذا هذا لنا ضحى لبنان وحي ضربت جدول عد وإسرائيل هو بحيث maalintii 14aad tani markii saxiixa is-afgaradka u dhexeeyo Washington iyo Tehran iyo 124 maalmood tani markii uu dagaalka bilowday inkastoo heshiiska u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan uu dhigayo in Israa'iil ay ka baxdo deegaano ku yaala koonfurta Lubnaan haddana wargeyska iyo أترنود أيام سوحكتي رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو وشيء إن إذا ما إسرائيل يسيبوا دونها جويتان هالقاس قدر عقول خضي هرمون لغا جاري وضع هذا الذي واشنطن طهران قدر أي عقول خضي إن لسوق قبي وريق عصب وضع هذا الذي تاسو ودحيان مريكا إيران kuwaasoo ka dhacay magaalada Dooxa waxayna sheegeen in horumar wanaagsan laga gaaray arrimaha weli ay taagan ku jirta heshiiska is-afgaran labada dhinac inkastoo hanjabaadaha Iiraan sida ay maraakiibta ugu gudbaan marinka biyoodka Hormuz xogta maraakiibta ayaa jawaab bixisay qaybta xogaha ila furan ayaa sheegaya in maraakiibtu ay weli sii marayaan marin biyoodka Hormuz iyagoo adeegsanaya marinka Oman inkastoo ay gudbayaan marinka dhinaca Iiraan tani waxay dhacaysaa inkastoo 29 Juun la qabtay kulamo ugu horeeyay ee gudaha wadajirka ee horumarka kaasoo dhex maray ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Oman kulankaasoo kadib mas'uuliyiinta Iiraan ayaa si rasmi ah u diiday adeegsiga marinka Oman waxayna u hanjabeen maraakiibta isticmaasha waddadaasi walaal qodobkaas carweyna in la soo wada qodobka ugu dambeeyay ku saabsan Iiraan iyo Oman iyo Mareykanka marinka Hormuzna waa la xiray wada hadal laba xaad socdo aan toos ahayn marka wixii ku soo kordho markeena marka xiga haddii Ilaahay yiraahdo hala sheer gareeyay waa in salaamay maalintiina ay wanaagsanaato. Assalaamu calaykum warahmatullahi